qisadii igu cajiibka waxay qisadii Talyaaniga u qabsatay naag Soomaaliyeed ah oo 4 nin qabtamaya mise iyagoo ay qabaan 4 ay qabaan mid Denmark degan mid London degan iyo 2 Talyaaniga degan bal habaar qabto sidee bay u kala ilaalin jirtay markii aanu wareysanayna waxaan ogaan inay sanado sidaa ku waday xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay raggana ay kala farsamayn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii baa diyaarad isugu yimi kii Denmark ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay way iswareysteenun wariga xageed ku socotaayo xageed ku socotaayo nin wali wuxuu deegaanka gabadhaydii baan ku socdaa gabadh meesha ku qabaayo waa kano mid kalena halkan kana Denmark mid ugu aasantay kana mid London ugu aasan tanina way qarsoontay guurka qarinta guurku dhibkaastay leedahay siday u wada fadhiyeen ba telefoon baa soo dhacay waana isnac fadhiyaan telefonkii waxa ka soo booday telefoonada imka smart ka bay ahaayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegay ma ku ilaab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa soo maaha sawirkeedii waa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday war sidee wax u jiraan buu waa gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii xaaskaagii baa haa yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii ma aha haa yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkuu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baa naloo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may odhanin arrintu waa labadan uune laba kala jira bay tiri yaa kanaan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kaloo Milaan la yiraahdo joogaa ka kalena magaalo Heblaayo joogaa haye wal isugu wada yeera wixii baan isugu wada yeernay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqli jirnay un rag wax qarqariye fajicishada noogu weyneed bay ahayd naag 4 ay qabaan naasideedu kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxa jira kan waqti gaaran u yeera kan waqti gaaran u yeera labadan magaalada joogno waqti gaaran aan shaqadiisa u qabta sidaas ku waday beet sidaas ku waday ha markaasaan wareysanay midba taariikhdu guursaday dib baan u wareysanay hadda iyo hor leh ya ala kulli xaal markii dambe kii u horeeyay baan adeerka adun ba meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela naadiguna ilaahay u toobadkeen dambi aanan weliga iyo maqal noociisa ayaad ku dhacday intaasana kaga baxaya ilaahay khayrka hayna waafajiyo waxyaabaha iigu cajabta badnaa intaan dacwadda ku soo dhex jiray waxaa ka mid ahaa markii aan dacwadda bilownay oo meel dhexe annagoo marayna ayaa waxaa dhacday qola ku soo duushay qabaa'ilku waa intaa islaaya marka aniguna waan yara shaqshaqaysan jiray waxbaan dameer yar iyo waxbaan lahaayoo dameerkaasaan iibsadayoo ii shaqshaqayn jiray marmaan macnaa biyaha ku dhaamin jiray marka dabeetana waxa dhacday nin iska wadaadaan ahaayoo masaajid baan biyaha isaga shubi jiray waa soo daraa dhowr tanag 4 lewd baan ku rogaa masaajidka reerkii baa reer ku soo duulay cishadii dambe baan dameerkii nin wadaadana waan ahaayoo masaajidka niman suufiya waxba haysto kuma tukado waa diidanahay biyaha laakiin waa u shubaa waxaan isiraahdaa lagu weesaysto maantii dambe waxaan imi masaajidkiioo agtiisii dariyo waaweyn foostooyin waaweynoo
dab shidan oo hilibba la karinayo awrna halkaa lagu qalay magaaladu waa meel waxay ku taallaa webiyada soomaaliya mid uu maro mid ka mid ah magaceeda waxba hadda ma baahan la sheegay marka waxaa dhacday haddii magaca la sheego dadkaa la garanayaa waxaa dhacday in waxaan arkay webiga waxaa jirta biyo xireen la sameeyey biyo xireenkii baan sidaa u eegay rag baa sidaa u safan kulligood waa feedhaqaawan yihiin raggaa meesha safan nin quroo shaar iyo garan xiran kuma jiro go iyo macawiis baa la wada xidhan yahay ninkii xaaji axmed baa la oran jiray masaajidka odayga kaa waxaan ku yidhi war xaaji axmed ma wadaadka ikhwaanka ahaa bay igu war xaaji biyihii baan shubay maanta maxaa jira dherigaa karaya awrka halkaa lagu qalayo soo ma aragtay awrka markaa docna waa laga saaray haraggii docda kalena waa la wadaa waa lagu bislaynayaa alibari baa ka jira reer hebel baa soo duulay nimanka halkaa fadhiya waxa weeyaan allabarigan iyagaa cunaya qur-aan bay akhrinayaan reerkaasi in maxaan ku idhaahdaa aanu soo gelin magaalada la xijaabaya haye oo qur-aankay akhrinayaan muxuu yahay idaa sulsilad baa la akhrinaya oo maxaa feeraqaawiyey nimanka idaa sulsilad marka reeraha lagu ganayo shaar lama xidho waa la feeraqaawiyaa buu yidhi oo sheekh sidee loo akhrinayaa wuxuu yidhi marka suuradda la akhriyo mee waxaan ku idhi tiradoodu waa intee waa cadadka qur-aanku yidhi waa 114 oo sheekh sidee bay idaa sulsilad qur-aanka o dhan ma akhrinayaan may oo sidee u akhrinayaan wuxuu yidhi marka ay marayaan silsaalaha bay kulligood waxay odhanayaan silsaalaha 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 7 jeer bay lugta odhanayaan silsaalaha annagoo sheekadii wadna mise wallaahi mid walba intuu bawdada qaabiyo sidaa leeyahay sidaa silsaalaha ilaahay wuxuu qadaray reerkii laga cabanayay awrkii iyagaa ku qadeeyo cunay dameerkayga baa khatar galayba aniga meesha diiq baan kaga baxsaday meeshii dameerkii awrkii waxaa cunay nimankii silsaalaha lagu akhrinayay waa meeshii ku xagee ka celinaysa waa khuraafaade waxyaabaha marka iigu yaabka badnaa bay ka mid ahay taas jazakallahu khayran waxaan u imaanay macalin doctor sheekh xasan waa sheekha keliya u ogolahay inuu iga yaryahay ragga kale maya معالي كسو دو مسيرك التعليمية قري علمي والوالد الشيخ أيات طبعا كسو بربارتي لكن تأثير كمان أبنها من هذا الجانب لكن إن مستقبل كاو أو نقضو سيدا الوالد أو كلا إن الدعوة كشر قيسيد وحيابه كسامي كتبتي واحد كنت أثرتك سو بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ibayo maanta oo dhan waan xanaaqsanaayo nin la dhacay baan ahayo doctor saciido meeshan ka taliyoona culimada anaa ugu yar baan ka qaaday marka laakiin hadda markii xamza uu soo sallaxay waxa weeye doctor calina uu sii dalbaday markii dambena sheekh cabdirashiid uu goolkii ku dhaliyey cala al-itlaaq inuu ugu yar yahay